wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya oo amar culus dul dhigtay diblomaasiyiinta ka howlgala waddanka Itoobiya iyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Tigray oo sheegay inaanu dalbanin maamulkiisu in ciidamada militariga waddanka Itoobiya ay ka howlgalaan deegaanka Tigray soo dhawaada haddii aad nagu cusubtahay nagu sabiir wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ayaa waxay amar cusub ama culus dul dhigtay diblomaasiyiinta ka howlgala waddanka Itoobiya waxayna ku amartay in aanay aadi karin meel ka baxsan Addis Ababa iyagoo aan fasax ka haysanin wasaaradda arrimaha dibadda warqad soo baxday toddobaadkii hore oo wargeyska reporter uu helay ayaa amarkan lagu cadeeyay waxaana lagu wargeliyay diblomaasiyiinta iyo missionaryada kala duwan ee ka howlgala ee ajaanibta ah ee waddanka gudihiisa ka shaqeeya inaanay caasimada ka bixi karin fasax la'aan inkasta oo warqadaas aan lagu cadeynin nooca dalbashada fasaxa inuu quseeyo fasaxyada gaarka iyo kuwa shaqada tan iyo dagaalkii waqooyi waxa soo baxday bay ahayd in diblomaasiyiinta iyo safiirada wadamada kala duwan ee fadhigoodu yahay Addis Ababa ay isku dayeen iyaga oo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka wax fasax ka haysanin inay aadaan deegaanada kala duwan ee waddanka iyagoo madaxda deegaanadaas shirar kala duwan la soo qaadanayay balse wasaaraddu waxay sheegtay in dadkan diblomaasiyiintii markay Addis Ababa ka baxayeen deegaanada aadayaan in dawladda federaalka uu waajib ka saaran yahay in amnigooda iyo badqabkooda ay la sugo sidaa darteedna loo baahan yahay in dhaqdhaqaaqooda la socdo dhamaadkii dagaalkii waqooyi ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay qortay warqad ay ku amrayso in diblomaasiyiinta iyo safaaradaha kala duwan dadka ka howlgala in ayna ka bixi karaan caasimada iyadoo la soo ogeysiinin wasaaradda arrimaha dibadda wax fasax laga haysan iyadoo hawsha fasax qaadashada loo diyaariyay foomo kala duwan sidoo kale xilligaas waxa lagu wargeliyay bahayd inay u hoggaansamaan oo maaragtay ay buuxiyaan foomka loogu talagalay in ay fasaxa ku qaataan sidoo kale waxa lagu amray xilligaas in markay xitaa shirar qabanayaan la kulmayaan shacabka qaybihiisa kala duwan inay wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladda soo ogeysiyaan si loola socdo dhaqdhaqaaqyadooda waxaa jira saan la socono dagaalkii waqooyi in markuu dhamaaday in safaaradaha kala duwan ee waddanku dadka oo diblomaasiyiinta ka shaqeeya inay maqale tiraba dhowr jeer ay ku noqnoqdeen iyagoo dawladda federaalka wax fasaxa ka haysanin sidoo kale waxay aadeen baa la yidhi deegaanada Oromada iyo Axmaarada iyagoo dawladda federaalka wax fasaxa ka haysanin dhanka kale sanad dhaweyd wasaaradda arrimaha dibadda ayaa wax u soo jeedisay hay'adda golaha wakiilada shacabka in arinta ku saabsan arrimaha dibadda ay tahay shaqada dawladda federaalka isla markaana dawlad deegaanada looga baahan yahay in ayna faragelinin oo ayna maaragtay qaabilin diblomaasiyiinta ajaanibta iyagoo fasax ka haysanin dawladda federaalka hawshaasna baarlamaanka ayaa laga hadlay baarlamaankuna waxa uu soo jeediyay markaas in dastuurku sida uu qabo loo maareeyo hawshaasi dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dawlad deegaanka Tigray General Zarqan Gabratinsay ayaa waxa uu beeniyay warar sheegayay inuu dalbaday maamulkiisa ama gaar ahaan maamulka ku-meelgaarka deegaankaas in ciidamada difaaca qaranka waddanka Itoobiya ay ka howlgalaan gudaha deegaankaas generaalku waxa uu sheegay in codsigaas uu ahaa in degmooyin kala duwan oo ka tirsan deegaankaas ay waqti xaadirkan gacmaha deegaanka ku jirin maadaama qaar badan oo kamid ah degmooyinkaas ay ku jira waqti xaadirkan dhul dawladda Eritrea ay gacanta ku hayso oo gaar ahaan dhulkii 1998 dagaalka labada wadan u dhaxeeyay oo ka dhacay iyadoo heshiiskii Algersina wuxuu in goobo kamid ah aagaas dawladda Eritrea lagu wareejiyay xilligaas balse dawladda EPRDF ayna wareejin hawshaas balse markii uu Abiy xilka la wareegay waxa uu sheegay bahayd in dawladda federaalka ee waddanka Itoobiya ay u hoggaansamayso hirgelinta heshiiskii Algers ee lagu soo afjaray dagaalkii labada sano socday oo u dhaxeeyay dawladaha Ethiopia iyo Eritrea janku waxa uu sheegay in hawsha ku saabsan codsiga ciidamadu inay ka howlgalaan deegaankaas aanu ahayn in gudaha deegaanka ay ka howlgalaan balse maadaama dastuuri ay tahay in ciidamada difaaca qaranku ay ilaaliyaan xuduudda in dalabkoodu ahaa in ciidanku ay la wareegaan xuduudda waddanka gaar ahaan inta deegaanku la wadaago dhanka Eritrea halkaas oo dhibaatooyin kala duwan ciidamada Eritrea ay ka hayaan isla markaana shacabkii aagaas deganaa ay qaarna soo barakiciyeen qaarna maaragtay ay la wareegeen iyaga dhulkiiba waxa kale oo sheegay in qoomiyad la yiraahdo
Europe oo dabcan ku dhaqnayd xadka labada wadan in boqolkiiba 60 ay dhanka Eritrea aadeen boqolkiiba 40 kalena ay deegaanada siiba magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Tigray ay degan yihiin qoomiyadaasna hadda dabcan ay ku dhowdahay inay taranto dhanka kale garabka TPLF oo hogaamiyo Debretsion ayaa muddo kor waxa uu maamulka ku-meelgaarka ku eedeeyay inay rabaan in ciidanka difaaca qaranku ay si buuxda uga howlgalaan deegaanka isla markaana amniga ay kala wareegaan hay'adaha ammaanka deegaanka Tigray balse Major General Sarqan ayaa hawshaas ku tilmaamay waxba kama jiraan waxa uu sheegay in gudaha deegaankaas amnigiisa ay ku filan yihiin ciidamada ammaanka ee deegaanka Tigray ciidanka difaaca qarankana waajibaadka dastuuriga soo gudanaya loo baahan yahay in xuduudka wadanka ilaaliyo kana ilaaliyo caduga tan iyo kulanti dambe nabadgelyo